dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ku nool dalka Malaysia magaalooyinkiisa kala duwan iyadoo ay dadkaasi ka mid yihiin arday aad u fara badan oo jaamacadaha qaybahooda kala duwan ka dhigta wadankaasi Malaysia isku xirnaanina ay ka muuqato marka loo fiiriyo wadamo badan oo Soomaalidu ay ku badan tahay ardada jaamacadaha ka dhigta Malaysia waxa ay doortaan mar walba marka la gaaro waqtigii doorashada gudoomiyaha ardada taasoo ujeedadu ay tahay iska warqab joogta doorashadii ugu dambeysay ayaa dhacday iyadoo gudoomiye ay u doorteen Abdullahi Maxamed Ali warbixin arintaasi ku saabsan wariyaheena Kuala Lumpur alaaba ka soo warraba Saciid Cumar Bafo goobta doorashada ka dhaceysay ayaa ahayd jawi aad u degan waxaana nidaamka iyo kala dambeynta hagaayay guddi loogu talagalay oo xidhnaa darees u gaar ah muujinayna astaanta calanka Soomaaliya ardayda ayaa safaf dhaadheer galeen waxaana arday waliba la weydiinayay baasaboorkiisa sharciga uu ku joogo wadanka kan Malaysia iyo waliba ID-ga uu ku dhigto jaamacadda dabadeedna waxaa la siinayay number oo ku fadhiistaan waxaana taa ugu wacneed inuusan hoolka codbixinta soo gelin qof aan arday ahayn musharaxiinta sanadkan ayaa kala ahaa Abdullahi Maxamed Ali Suldaan iyo Ibrahim Xasan Xaaji waxaana la fariisiyay meel gaar ah oo ay ka soo horjeedeen dadweynaha waxa goobjoog ka ahaa goobta doorashada ka dhaceysay gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed Malaysia aqoon-yahanada Soomaaliyeed wax ka dhiga jaamacadaha xubin ka socotay safaaradda Soomaaliya iyo waliba gudoomiyaashii hore u soo maray ururka ardayda Soomaaliyeed ee Malaysia daqiiqada kadib waxa la bilaabay qaybinta kaararka codbixinta waxaana ugu horreynba la siiyay labada musharax iyagoo isu codeeyay ardayda ayaa si kalsooni ku jirta qof waliba ugu codeeyay musharaxa uu taageersan yahay kadib markii ay dhageysteen ajandaha mustaqbalka musharaxiinta soo bandhigeen ayna ku hogaamin doonaan ardayda Soomaaliyeed tirinta codadka kadib ayaa natiijada waxa ku dhawaaqay gudoomiyaha guddiga doorashada Ismaaciil Taaha dadkii soo galay hoolka oo codeeyay si sax ah u codeeyay marka lagu daro labadeena murashax waxay isku noqdeen 279 qof marka labadooda lagu daro saddex cod qof aan codayn iyo laba qof oo inta baaritaan lagu sameeyay inaysan dokumentiskoodu sax ahayn ay soo baxdayna waa laga saaray tiradaas guud 212 cod waxa ku guuleystay oo gudoomiyaha ururka ardada Soomaaliyeed Malaysia sanadka 2013 2014 noqday Abdullahi Maxamed Ali sida uu sheegay gudoomiyaha doorashada musharax Ibrahim waxa uu helay 67 cod halka Abdullahi Suldaan uu helay 212 cod oo ku noqday gudoomiyaha cusub ee ururka ardayda Soomaaliyeed ee Malaysia gudoomiyaha cusub ayaa hadal kooban oo goobta ka jeediyay ugu hambaliyay dhammaan dooratay iyo waliba inta aan dooranin Mr Mawlid oo ah gudoomiyihii hore ee ururka ardayda Soomaaliyeed ayaa waxa uu isagana goobta ku soo bandhigay waxqabadkoodii muddadii ay xilka hayeen waxaana uu la dardaarmay waxaan halkaan uga mahadcelinayaa dhammaan ardayda ka wada timaaday jaamacadaha kala duwan ee dalka Malaysia inta ay codeysay inta aan ay codeyn dhammaan waa maasantiin dhammaan ardayda wala wada shaqeyn doona hadii Ilaahay yiraahdo xaqiiqatan aad baan ugu faraxsanahay waxqabadkii sanadkiina la doortay waxaan soo qabanay taas waxa u daliila xafladda tan doorasho ee heerka caalamiga protocolka leh akhlaaqda leh ardada sida ay u dhacday baa ku tusaysa intii aan xilka haynay sidaan waxaan u qabanay waxaan u rajaynayaa walaalkayga la doortay inuu asaguna sidoo kale Soomaalidu isu keeni doono wax badan oo qaban doono Ilaahay hala garab galo doorashada tani ayaa waxa ay ku soo gabagabowday jawi qurxoon waxaana isgacan qaaday dhammaan ardayda iyo musharaxiinta waxayna gudoomiyaha cusub kula dardaarmeen inuu fuliyo ballanqaadyadii uu sheegay xilliga uu khudbadiisa soo jeedinayay Saciid Cumar Universal TV Malaysia